dhaqan waa erey mugeeya isku keena qaybaha kala duwan ee aqoonta, caqiidada, isirka fanka, anshaxa, xeerka, caadada iyo guud ahaanba wixii la halmaala nolosha bini'aadanka. dhaqanku waa taariikh, waa tusaalooyin gaar ah oo ummad lagu tilmaamsado, kulna waa istaageersiga, tabta la isku kaashado iyo tiirka nolosha. dhaqanku wuxuu kaalin muhiim ah kaga jiraa qaybaha nolosha Soomaaliland haday tahay xagga siyaasadda, dhaqaalaha iyo waliba arrimaha bulshada. dalka Soomaaliland wuxuu leeyahay dhaqan iyo taariikh fac weyn. Somaliland waa ummadii gabayga ama qarankii gabayga sidii uu ku naanaysay sahmii reer Ingiriis ee Rigi Borton. Kahor intaan Ingiriisku soo caga dhigan qaaradda Afrika, Somaliland waxay leedahay taariikh mug iyo miisaan weyn. tusaale waxay noogu filan sawirada Lascelles oo lagu qiyaasay in la sawiray 10,000 sano ka hor. Suugaantu waa kaydka taariikheed ee ugu badan ee Somaliland kaas oo laga dheehan karo tagtadii berisamaadkii. haddaba hidaha kadib waxay bulshada Soomaaliland ugu baaqaysaa inay ilaaliyaan hidaha iyo dhaqankeena Somaliland. waayo waa sawirceennii, waa sumadeennii, waa is-ahaashiyaheena ummadeed.